بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وبشو تهي شنتي بشي مي لبكون يستدي طبعا وحانو هالكن كدوبينا سلسلة ما سادة ألف لي وحانا إنو هرمينيا خضر حسين آدن مرتي كوري أمين هوري أيو أبوان عبد آدن قيس وحتريه قيسيدة عانك نقطي أولياء لا يأذيك حل الدنبه أي إذا عدى بيسو كوريستي عبد قيس قيسيدة يا رمي كحيرة شيخ الكذب عبد وحد دودي سكوصاف ميري إن أنا دتكو إلهي توصل حرير كرين أو قفل بأوبة هي شيخ إلهي أوجية هذا بع أحمد أوجيدي وكم دها دتكي وريس قاعد جيسي أي أرنك عبد كوين كري وحانو تريه ما صدق كون نول رجو درو هكذا وحكي بفرمي سلسلة ما سادة ألف لي لجيسي هبون kadib waxa uu ugu jawaabay Axmed Ogeedi maansada magaceeda la yiraahdo kuwa nool ergow diro waxaanu yiri nin ilaah ka maarmaa odayaal xijaabtiyo awliya u yeedho qabri ku ag wareege alle kaliya weeyaan cirka kii abuuro alle kaliya weeyaan dhulka kii asteeyo alle kaliya weeyaan kaarsaaqda bixiya alle kaliya weeyaan ka adoomo loo yahay ma ilaah kala jira duco ka ajiibo ma ilaah kala jira bariyo kugu arsaaqo ma ilaah kala jira nolol kugu ilaasho ma ilaah kala jira ajashaada siibo ma ilaah kala jira uur kugu barbaarsho ma ilaah kala jira anfaaciga ku siiyo ma ilaah kala jira oo adoomo loo yahay taasi waa andaad iyo ishraak iyo asnaam aad ilaahay u yeeshay ashahaado soo celi kana sahan ilaahay aw loo wakiishe kuwaad uubatayneed noo adeega leedahay inay olol jaxiimiyo edeg naara joogaan iyo inay jannada udug xural cayn arooseen sideed uba ogaatood u hesha akhbaarta aakhiro mataar baa adig kuugu xidhanoo qaybkaad ogsoon tahay lafa uu abaar cunay ninka oohin maqashii af muggii la yeedhow ambad baa tahee toos addoon dhaadhacoo tegey iilkiyo xabaalaha inkastood u yeedhood ohow toosa leedahay ku ajiibi maayo abidkuma maqlaayee alla hayse seegina duubi ciid ku aasmo awaaraha ku raago qabri lagu ilaawiyo mayd lama ilaaqee kuwa nool erga u diro iyagaa awood lehe wuxuu yidhi abuwan hore nebigoo ayaan qudha inta uu xabaal tegey xawaal gees istaago oo yidhi awoowow nasri adigu noo hidi ilaah baan ku dhaartee inaan axadna sheegine intaan mood idiin iman xaqa maad abbaartaan miyaydaan aqoondiin andacood ma fiicne wixii kaa ishkaal gala ha laguu iftoodee culimmada usuushiyo aqoon-yahanka weydii hadday duulal aasani inoo hiilin karayaan uxud iyo xunayn iyo asaayii tabuuk dhacay mabay dhego adkaadeen wuxuu yidhi abuwan hore nebigoo ayaan qudha inta uu xabaal tegey xawaalgees istaago oo yidhi awoowow nasri adigu noo hidi ilaah baan ku dhaartee inaan axadna sheegine intaan mood idiin iman xaqa maad abbaartaan miyaydaan aqoondiin andacood ma fiicne anna waxaan ku darayaa wixii kaa ishkaal gala ha laguu iftoodee culimmada usuushiyo aqoon-yahanka weydii hadday duulal aasani inoo hiilin karayaan uxud iyo xunayn iyo asaayii tabuuk dhacay mabay dhego adkaadeen hadday duulal aasani inoo hiilin karayaan khandaqii adkaayee lagu oofabeelay jignayaalaf badan iyo agab keeni laayeen hadday duulal aasani inoo hiilin karayaan yuhuud baan ka oriseen aqsa degelladeedoo abibakar sidiiq iyo xabse aabbaheediyo calaa soo ekayn laha weerar lagu idlaado khaalid baan ka ooleen arrimaha jihaadko asxaabtii rasuulka adduunyada dhammaanteed afarteeda waaxood ololaha ka shabin laha awliyadu ma dhimatiyo arbacay kulmaan iyo islaamaha ku badowsada waxaan diintu nagu odhan inta geed magooliyo abuurka iyo dhuuniga ilaah baana siiyo axad kale ma tuugne isagaana kaafiya nimcoolayda adhigiyo ishinkiyo looda u badan ilaah baana siiyo axad kale ma tuugne isagaana kaafiya neecawda udugiyo carfigiyo ildoogale ilaah baana siiyo axad kale ma tuugne isagaana kaafiya dhaayaheenna araggiyo dhugashada iftiishee dhegta maqala deecdee durbaanada awoodda leh rakaadadu abhinayaan dibno jira odhaahdiyo carrabkoo agloolo ereyada sameeyaba ilaah baana siiyo axad kale ma tuugne isagaana kaafiya eebbow ma aan arag sida ayuu eegtiyo aakhiro rugteedii adigaa rumee yidhi anna waan addeecee rabbow adiga mooye alle kale ma uu jiro
eebbow ma aan arag ololka iyo naartiyo albaabada saciiree abeesadu u hoyatee adigaa rumee yidhi anna waan addeece ha igeyn allahayow eebbow ma aan arag ilihii naciimiyo uduga iyo raaxada carfigiyo ildoogga leh sida ay u egtee adigaa rumee yidhi anna waan addeece ha iga qadin allahayow eebbow ma aan arag malaa'igta amarkiyo cibaadada adkaysee adigaa rumee yidhi anna waan addeece ha igeyn allahayow ha igoyn allahayow eebbow ma aan arag jinka madaxa adagiyo ibliiskii ridoobee amarkaaga diidee adigaa rumee yidhi anna waan addeece ha i raacin eebbow keligii ilaahow axadkii i barbaarshee uur habreedi geliyee abi igu dhex beeree anfac iigu keenee shankay igu ilaashow afka waxaan ka quutiyo uur waxaan ka buuxshaba adigaa isiiyo abaal iigu yeeshaye ifka aan ku nooliyo aakhiro dambaysaba labadaba adaalo boqorkood ahaadaye magantaada eebbow ruuxa eebbe haystee addoon liita tuugsaday amarkiisu liitee qabriga iyo iilkaan ka ilmaynayaayo eebbow abeesada axaadiistu sheegtiyo abrisada bidaarta leh iyo daba aleelaha ha ii loogin eebbow urta wada silooniyo uumiga iyo dukhaankiyo ololka iyo naaraha ha igeyn allahayow shafeecada rasuulkii udgoonaa intaad ka oggolaatee uu damiinto iga yeel anigiyo islaamkiyo idil mu'miniintaba uu damiinto naga yeel aamiin allahayow halkaa markay maraysay waxaa soo galay cabdiraxmaan sheekh cilmi faahiye shamax oo ku soo galay maansada istakfirulla maad odhan isagoo u jawaabaya axmedow geeddi waxaana uu yidhi waan arkay jamhuuriya caddadkii ayaantii ka akhriyey tixdaadii kuwa nool erga u diro inkiraadda weynee jiritaanka awliyo markii aan idleeyoon cabbaar aamusnaadoon uurkaan la shawroo mar dambaa waxaan idhi inankii maxaa helay tixo aan abuuriyo maan aqoonin gabaygee wuxuunbay abaabulay erey aan ka dhiibtiyo xaaladdaad aloostiyo hiilkeeda awliyo asalkaba wahaabigu inaa caddayn hadduu galo amaba se idaajaa kiiyoo niqraba baran aabbihii kol uu yahay waa ka muran ku oogee eedeeya shiicada iiraan iyo ciraaq iyo arladaa lubnaan iyo laga helo adduunkee ehlubeydka jecelee ammaanaya qoyskii udgoonow rasuulkii imaam cali iyo faadumo inamaday dhaleenee indhihii rasuulkaa anse waxaan ku leeyahay iminkaad u dhowdee yay kaa engeginoo lagaa laabin agabkee istakfirulla maad odhan allaahumma ballaqtu awbarkhadliyo xertiisii abaadir iyo saylici xertii ula madoowee ilaahay taqaaniyo idil ahaanba culimmada idam iyo karaamo leh aayihii ay reebeen aqoontay hirgeliyeen ilaah baa hagaayo ku ilahaanshay samehee cilmi daalib awgii etoobiya gunteediyo oromadii iyo xabashida qoti waxay ag joogeen soo meer ku odhan jiray ilasli'idu yaab lehe madag waxay afuufeen iftiin waxay ku raadsheen ololka iyo xaabada kutub waxay ku eegteen subcis ay akhriyayeen risaaladii ambiyaday addoommaha u tebiyeen awba aw ka reebay kuwan ehel wadaagniyo reer guuraaga adag iyo cawaan bay ahaan lahaayeen haddaan iyagu jirinoo tawxiid may asiibeen may noqdeen islaamkaba waxay abiyeen malcaamado ogta iyo waagaba aayadaha qur-aanka ah ubad waxay u mariyeen arday waxay waxbarayeen itaalkood dadaaleed imkaaniyaad ma haysane idam aliya ducaday ku eryeen jahliga oo ummad qallafa iyo badowgay ilbaxnimo gasheenoo adigaa helmaamaye ama ulakac diidaye halyeeyada aqoontiyo asaatida waxbarashada in axmed iyo sheekh cali awowyada tacliintiyo nagu abaabshay mahuraan allayliyo allaylehe abaalkoodu ma ahayn cabdi aadan qaysow kuwa nool ergow diro anse waxaan ku leeyahay iminkaad u dhowdee yay kaa engeginoo lagaa laabin agabkee istakfirulla maad odhan allaahumma ballaqtu aqoon baan ku gaadhsiin ama waad ilduuftee baaq eebbe weeyo albaqray ku taallaa jiritaanka awliyo aayaddii sugayso addayn bay u tahayo kuwa awdan dhaayaha ogaysiin ka siisaa in duulkani ammaan iyo umuur gaara leeyahay ilaahii korreeyee isagaa israacsho haddii aanad garanayn anaa kuu iftiimine abubakar iyo sayid cumar ibnu cafaan iyo imaam cali iyagiyo lixdii kale loo asteeye jannade asxaabtii rasuulka iyo ina kaloo badan ilaa eegga taxano iimaanku buuxo ku abtirsado dariiqada anse waxaan ku leeyahay iminkaad u dhowdee yay kaa engeginoo lagaa laabin agabkee istakfirulla maad odhan allaahumma ballaqtu suufigaad arkaysaa aroor wuxuu ku leeyahay jaamacadda adduunyada ugu weyn islaamkaba al-ashar al-shariif baa laga soo ansixiyo mawliidkaan akhrino iyo shacaa'irtuu oogiyo sheekh buu u leeyahe bidco timi cayaamahan
adig iyo asaaga kama raba aqoonsiye anse waxaan ku leeyahay imikaad u dhowde yay kaa engegino laga laabin agabke istaghfirullah ma oran allahumma balaqtu halka markay mareysay waxa soo galay warsame sheekh maxamed warsame isagoo ku soo galay maasada magaceeda la yiraahdo ergadii rasuulka isagoo u jawaabay Axmed oo geedi waxa uu yiri inkastoo waayadan alifaada gabaygiyo hal abuurin geeraar ibtileenta diintan ka adkaysan waaye abda bismillaahi maansadan irmaanta ergadii rasuulkana islaamkeeda weeyaan alle kali inuu yahay nin aqoonsan baanahay ruux islaama baanahay kana dhamaantii rabbi baa abuurto arsaaqdooda bixiyo islaamka iyo gaaladu waa adoomihiisa ingiriis dalkeena qarnigu adoonsaday diinta yaa adkeeyo dadka yaa islaamnimo ku ekeeyay waagaas ma intiinan maanta salaf iyo islaax iyo itixaadka sheegta islaamnimada daafacay mise awliyada uu cabdi aadan tiriyaa kiniisado awood loo ummadaha gidiyayo urursada caruurtiyo aafadii gumaysiga ku afuufay duufaan aayadaha quraanka iyo axaadiista nabiguna siday noo iclaansheen awliyada ilaahay adduunyada dhexdeediyo aakhiro kol ay tahay umal iyo walaac iyo werwer kuma arkaanoo jannay ehel yihiine qaybkoon ogsooniyo maaha adyadaada waa wacad ilaahay ambiyada la soo diray iyagoo la oofsaday wayna anfaceenoo qofka taa inkirayow anaa ku iftiimine axmed nebi maxamed alla dheelmintiisii isrihiye micraajkii amarkii salaadaha konton jeer adimidii muuse arrimiyo ergadii rasuulkana isagaa diraayo allaheen ku celiye 45 salaadood ambiilkeeda qaatee wuu noo adeegee ma ifku ku noolaa odhaahdiyo xadiisyada noo ishaaray culimada haddii aad inkiraysiyo haddii aad adeecdaba anaa ku iftiimine wuxuu yidhi udgoonuhu culamaau ummati ka ambiyaa'u bani israa'iil aqoonyaha ka diintee ummadayda ka dhashiyo ambiyada israa'iil isku ayni weeye miyaa taag maraysaa odhaahdiyo xadiisyada noo ishaaray culimada haddii aad inkiraysiyo haddii aad adeecdaba anaa ku iftiimine wuxuu yidhi udgoonuhu aqoonyahanka diinta ambiyada dhexlaayee miyaa taa ilowdeen aladiina ancama allaahu afar weeye kooxood ambiyo iyo sidiiqiin shuhadada ilaahay iyo saalixiinto addoon lala rafiiqee ha ambana jidkooda alle loo maraayo rabbigeen agtiisana iyagaa ku geeye shirki iyo asnaam iyo andaad baad ku sheegtee bal aduu la'aantood ilinkaad maraysee raxmaan kaa aqbalaya janno udugka geliyana waynu eegi doonaa 40 xadiis baro dabadeed iftoodo sheekhii awowgii u mehershay ayeydii afka uu ku taago ishraak bay wadeeniyo bidci bay ahaayeen edebli'i ku sheekhow odayadii horreetee diinta oogi jirayee ka adkaa naftoodii haddaad eed u haysaan udub iyo kulmiye iyo u cid oo tartamaya iyo asxaab maaha diintuye garabkood istaagto adigoo aan ceebayn inankay dhaleen iyo ubadkoodii baa tahay balka awda meeshay iimuhu ka muuqdaan habeenkii ay aamini rasuulkeenna umushaa kulli ehelulaahigu ibtihaajka faraxa wejiyadu iftiibeen ibliiskiyo dhashiisana urugaa hadhayso tows bay la ooyeen haddaan anigu iidoon agoon iyo ismasaakiin aanan faaciga siiyoon arra tiray dhammaantood miyuu erey ka joogaa ma og tahay madhaadow lacagtaa la ururshee ardaydii qur-aankana tartan aad u adag iyo imtixaan la mariyee dabadeed abaalmarin inta heshay la siiyiyo mawliidkaynu ayidniyo ixtifaalka nebigeed nagu eersanaysaan labaduba ujeediyo asal bay wadaagaan akhlaaqdiinna dhowroo odaygarbis ha noqonine aalubeydka nebigiyo asxaabtii rasuulkiyo awliyada ilaahay ajarkood ku toogsaday abujahal ma aan ihi ergadii rasuulkana ducaan ku intiheeye aamiin dhaha ikhwaanow allahayow asmaadaada wacan iyo sifadaada oo idil anigoo irkanayaan addimada ku hoorsaday muslimkii adduunyada tamar iyo itaal iyo ma midayn awoodoo way kala irdhoobeen ameerikiyo yuhuud iyo abkeed gaalo oo idil hoos bay u eegaan oo irhaabiyiin iyo argagixisa yidhaahdaan ayaantii timaadaba aalaaf carruuriyo islaamaha u badanoo kaafir uu idleeyaa waannu aasannaayo ilmadaanna tibiqlehe na ulfee allahayow halkaa markay maraysay waxaa soo galay axmed colaad digaale oo ku magac dheer qorane maansidiisana u bixiyey amar nebi ma haysaa
isagoo u jawaabaya warsame sheekh maxamed wuxuu ku bilaabay sheekadan agoonta ah abuurkiyo dalbaha badan macsidiiyo ifsaadka ninka soo agaasimay abwaan kuma sifoobee ma dhallaan afbarada ma khuraafi odayo cimrigii asaasaqa uminimo ku gaadha ma islaan masayrto umalkiyo hinaasi afadiyo ninkeedii u buraanburaysa ma wadaad ameelo fooxiyo aleeshiyo burdaha iyo eebada ku ugaadhsan jirayoo meelaha irmaan iyo axankiyo fidii iyo xoolihii agoontiyo laga ootay reerko intifaac ka deeya afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee wuxuu yidhi abwaan hore nin aan baday aqoontii halkuu aad isleeyahay waxay ula ekaataa irdihiiyo rugtoodii wuxuu yidhi abwaan kale aqalyarow haddaad tahay agagaarka hoygaa ardaa laga samaystaa haddii uu adduunkiyo adhigaagu gibin yahay iimaanku waa dabar nafta lagu adkeeyaa waxay tahay ujeeddadu haddaad tahay aqoongaab inaad aamusnaatiyo haddii edabtu waa sharaf afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee asraarka diintan u adkaysan waaye ogobay qurayshiba ma inkirin raxmaankiyo jiritaanka eebbee inuu yahay ilaahii aradkiyo cirka alkumay way aqoonsanaayeen waxaa keenay abasada ma og tahay arbaabtiyo sanamkiyo andaaday iyaguba u haysteen wax ergayn karaayoy alle ugu dhowaadaan idinkuna sidoodii waxaad ku ibtilowdeen qabrigiyo amwaadee miyaydaan u eegayn lahab aabbihii iyo abujahal sidiisii hadmuu yidhi ilaahay marka xaalku adag yahay ama adhigu caymado ruuxaan alleylkiyo ami khowfka fiidkii u dhawaaqin meytida jaylaaniyow odhan baryo kama ajiibee awliyada soo mara hadmuu yidhi ilaahay axad iga wakiilo anigiiyo addoommaha u dhexeeya baa jira xujo soo aroorto la aqbali karaayiyo axaadiis saxiixiyo aayado ma haysaa ajal dhimatay waa hore intay iil yar loo qoday lagu riday awaaraha ubad iyo arsaaq iyo ninka oon ka sugayow ma awoodi karaya intuu aayar soo baxo iska rogo camuuddii laga saaray oogada ma adeegi karaya haddaad uubataysaan ereygaad ku leedahay ma ajiibi karaya waase erey su'aalahe ninka ooridiisii mid kaloo asaagiye intuu aayar guursaday misna ila xidhkuu beri arrimaha ka fulin jiray ku aroostay waa hore allaan idinku dhaarshee haddii uu itaal iyo ifka talo ku leeyahay ma aqbali lahaataa afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee horta inaad abaar iyo umus iyo kulayl iyo arlo diriiri joogtiyo aafaad ku nooshahay iyo inaad ugbaad iyo arlo lagu giyaystiyo istareex ku nooshahay ninkaad aabbo leedahay muxuu dunida ka ogyahay afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee wuxuu awrka layligu isagoon wax loo diran dadka uga irdhoobaa ma'amuur horreetiyo budka aramidiisiyo agabkiyo culayskii laga saaray adhaxda waxaan uga gol leeyahay culimaa'udiinkii cabdi aadan qaysiyo idinkuba tilmaanteen axmed geedimaansada aflagaado kuma odhan wuxuu yidhi ogaalkay alla tuuga keligii isagaa awood lehe anna kama odhaah fogi ruuxii islaamee ashahaadanayee iimaanka qirayee ka cabsada ilaahay awliye inuu yahay nin aqoonsan baan ahay anse waxaan ku odhan lahaa aw yuusuf maamiyo ina macallin cumar iyo guuriye aweysiyo cabdi ina ayuubkii haddiis lagu xabaaliyo abaadir iyo saylici haddaad idinku leediin weliyey ahaayeen asmaa lama tilmaamine argagaxa qiyaamaha alla haw gargaaree maxaa taa daliilu ah xujo soo aroorto la aqbali karaayiyo axaadiis saxiixiyo aayado ma haysaa afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee guurihii alleylkiyo isrihiiyo micraajkii xilligii udgoonaha laga furay albaabada ha ergeeyo muuso aakhiro ha joogtee ifka miyuu xidhiidh iyo itisaal la leeyahay dhulka ma isku aragteen arrimaha rusuushiyo ambiyada u khaaska ah yaa adeegso kugu yidhi afartaas deeyaye ambaqaadka faallada ku itaalsan maayee orta iyo durbaankiyo dumar alalagleeyo u mashxarada nimankiyo dhaantada ibliiskiyo sida aar hal weyn dilay waxaan iihda lala guro haddii uu amiirkii ifka cumar ku nool yahay waxay aniga ila tahay inuu idin ulayn la'a
waan idin arxamayaa nin islaamba baan ahay qabri lagama ooyo bidco lama alooso xaqa lama afduubee ammintuu jimcuhu galo mawliidka la akhriyo haddaad idinku leediin isri iyo qur-aankay aftirsiin wadaagaan maxaa taa daliilu ah xujo soo aroorto la aqbali karaayiyo axaadiis saxiixiyo aayaduma haysaa afartaas deeyaye ambaqaadka faallada kuwii taalsan maayee anas iyo cubaydiyo afartii khaliifiyo cali iyo ikhyaartii mustafuhu ayaan qudha ma ku yidhi asxaabtii cishadii isniinteen adduunyada u soo baxay inta lay dabaal dego ixtifaal ha lay dhigo amar nebi ma haysaan allayliyo allaylehe waxaa ku andacooteen asal kumala diintee haddii uu alaabtaa ajar iyo ku jiro khayr amranow rasuulkii ma ilaawi kari la afartaas deeyaye ambaqaadka faallada kuwii taalsan maayee salaf iyo islaax iyo itixaadka gaalkiyo isticmaarku necab yahay ha ku odhan aqwaal jaban asal raaca diintiyo fuqahada ha eedayn inan kuma wadaadada ka alwada xabaashee sida ugub caruusada idankiyo dabqaad kale qudbiyada abaadiyo qabriyada u unsiya ma abbaarin meeshay kaga taallo iintuye adigoon usuushiyo waxba diinta ka ogayn ururada islaamkiyo odayada ha kala dilin dadka ha isku aafayn afartaas deeyaye ambaqaadka faallada kuwii taalsan maayee isticmaarku waagu aradkiyo dadweynaha addimada ka kala riday kiniisadaha ka alkumay hadda ubaxan soo baxay aradkaba ma joogine ushayaa u sidi jiray taariikhda ma akhriday afartaas deeyaye ambaqaadka faallada kuwii taalsan maayee heesahan ayaamaha arbacada la tiriyiyo israa'iiliyaadkiyo nin munaaqib ku anqaray ninka uubateeyee ugu baaqa dawgay alle iyo rasuulkii ummadda u jideeyeen ixsaan uma niyoodo waxa awdmay dhegahoo qalbi laba afraafloo midba ilixidh leeyahay aadmigu ma yeesho ajar ruuxa laasimay durdur laga afuriyaa kama biyo oonkee waxaan kuu abhinayaa ukhway naga dhaxaysee ha u dhuran indhoolii intuu soo ambaabiray oodaha jibaaxaye marka hore axkaamtiyo ummahaadka sare iyo istilaaxa kala baro nala arag shareecada halkaa markay maraysay waxaa soo galay cumar maxamuud oo ku magac dheer booshay maansidiisana u bixiyey awliyo maxay tahay waxaanuu ku bilaabay axmedow farriintan ka akhriyey waraaqaha ereyada xogtoodiyo ulajeeddadoodiyo waan helay akhbaartee anigana warigaho sow eel xidhnaayo cidi ood ka qabanoo naga aamusnaabaad eebada ku jeexdee ugub ma aha xaajadu ragga uubateeyee afka gacanta saaree qubuuraha agtoodiyo dad aboorku cunay beri intifaac ka sugayaa marka hore amuuraha anigoon ku talax tegin aan idin su'aalee awliyo maxay tahay ma asluub wanaag iyo edabtiyo xishoodkiyo amarkii nebigu faray nin addeecay tiisiyo samirkiyo akhlaaqdiyo amarkiyo macruufkiyo in xumaan la diidiyo in salaad la oogiyo xajka oo la aadiyo naxariista eebbo amin dhexe la tuugiyo ifka camalku deeqo iimaanku dhaliyo aakhirow ku bixiyiyo ma edeg badbaadaa awliyo mataasa mise waa nin awdmo qabri lagu ilaawo ii lagu xanibayo haddii ubadka laga dhaco marna aarsan karinoo adduunyada warkeediyo kaba tegay iftiinko aakhiro u meeraa awliyo mataasa mise aan iftiinshee aqoonlaawayaashiyo nin anbaday siduu yidhi marna waa abees iyo maska abuurka saydhiyo aarkaynta joogiyo abagurida caanka ah awliyadu mataasa mise waa nin oogada aar qoyay la moodo eebadiyo warankiyo awlaxa ku daaqo axankiyo fidaha cuna awliyadu mataasa afartaa tilmaamaye ulajeeddadaydiyo waxaan uga dan leeyahay onkod dhidar ka rooriyo nin aanbaday ma sheegine aqoonyahanku way garan arrin kale wuxuu yahay aayadaha qur-aankiyo axaadiista nebigiyo culimmada islaamkuba siday noo iclaansheen adduunyada dusheediyo dembi uunka laga galo waxa ugu itaal weyn alle keli inuu yahay nin inkiri xaqiisoo awooddiisa wax la simay ictiqaad fasaadiyo edabtoo xumaatiyo caqli qoon shaqayniyo aflagaado guud iyo
dulmi soo abbaariyo iftiinkii cadceeddo gudcur lagu amaahdiyo cilmigiyo aqoonto la adeegsan waayiyo jahli aafadiiso sama lagu ilaawiyo waa eed ninkii gala arxan loogu gelinoo adduunyada intuu jiro alle toobadiisiyo istakfirulla mooye aakhiro markay tahay albaab kale ka xidhan yahay nin afaystay waranoo timahana aflaaqada duf alluuban moodo tusbax uurarweyne ah adhaxdiisa guudkiyo oogada ku duubto am ku siiyey fooxo aqiimkiyo salaadaha iska baalmaraayo kuyo awliyaan ahay afka way ka weyn tahay waxba ereyga maansada anigoon ku dheeraan waxaan aayar leeyahay raggan eedda falayee awyada la duugiyo ubad ruux ka sugayow aakhiro ha seegina ilaahayna kama tago nin inkire xaqiisiyo rabbi keli ahaantii maalintay alligantee ehel iyo xigtaba jirin bal ogow ayaanta alle saamaxaadiyo ergadiisa ma oggola rabbow duul aqoon loo amarkaaga qaato ku adeeca naga yeel rabbiyow arkaantiyo iimaan wax deeqiyo xaqa nagu arsaaqo itibaaca nebigiyo asxaabtii rasuulkiyo awliyo raxmaankiyo isirkii dadkii hore ehelkooda naga yeel abwaankii bilaabiyo axmed geediyow maqal qoranow amiir noqo aw muuseheeniyo ina xaaji cali iyo alxuseeni gaadhsii ku anqari raggeedii inta iga dambaysiyo awliya ka hadalkow waa albaab inoo furan halkaa markay maraysay waxaa soo galay maxamed xaaji cali cabdulle maansada ikhlaas waxaanuu ku bilaabay alifaadda gabayada arartiyo tusaalaha iyo ereyga maansada nin kastoo abuuraa ujeedduu ka leeyahay ha yeeshee ilaaqdiyo aflagaado hadalkiyo asraarku kuma jiro nin islaama abidkii dikrigiyo adkaartii ijtihaadka diintiyo alla kacabsiba wacan ninka ooda jiidhee kadinkiyo albaabkiyo iriddii ka leexdiyo kaag maray xaqiiqdii midna lama ammaanayn katubtii ku aadee xaqa ku addimaayiyo ka asiibay baa wacan nin ambaday alleyl dama ku asqoobay ay xidhan inuu waaga eego yar iftiinsado wacan hadduu reer abaarsado ubadkiiyo carruurtii xooluhu ka oomaan intiqaalka geeddiga ninkii amarka bixin jiray hadduu soo abaabulo adhiga iyo geelii intaan oodda laga rogin hadduu roobku ku onkodo in la ooliyo wacan afku ereyga khayr kale haddii aanu odhanayn inuu aamuso wacan afartaa asteeyo idhi oo tilmaamaya waxba yaanan arrin kale isku sii igbaarine axmedow amuurtaad iba bixisay adiguye qoranana abqaalee cumar sii ayiday baan adna rabay aqoontay inaan sii iftiinsho waxoogaa ishaaree bal aan eegno maansada aakhiriyo adduunkaba arrimaha alla iska leh aadamiga idilkii isagaa abuurto u addoomayeeno arligiyo dhulkiisiyo ku arsaaqa samadoo ka inkire xaqiisiyo ka addeecay labadaba isagoo u arrimiyo labadaba arsaaqo axwaashooda maamula markay urugto xaajadu arrimuhu adkaadaan ama aafo daran iyo abaar iyo kulayl iyo dadka cudur asiibee dhib mutaan addoommuhu alla weyne mooye axad kale wax kama taro arligoo barwaaqaa nimco iyo ugbaad bale cuudkuna irmaan yahay ooshu nabad ku taallo amni iyo wanaag iyo istareexna lagu jiro haddii ay amuuruhu ufo iyo colaad iyo bele soo abbaarto laba colisa taagto awaare iyo boodh iyo dhulka uura qariso abley lagu idlaadiyo eebada waxlaysiyo la afaysto waranko layska guro unuunko oohin iyo baroor iyo ooryo sidaasaydiyo agoommuhu bataanoo raggu yahay askagolko odaysama ku baaqiyo erge layska diido xaalku yahay afkalaqaad ma og tahay amuurtaa alluunbaa islaaxshee axad kale wax kama taro aw habeello tuugyadan cidlada u irdhoobee ayda iyo kaymaha oo howda ka hayaa waxaan ay ku oomeen aayadaha qur-aankiyo axaadiista nebigiyo axmedow bukhaariga haddii ay ka eegaan bidco inay alooseen way ogaan lahaayeen nin adduunyo bixiyo ehel iyo qaraabiyo ay taanta siiyo masaakiin afuriyiyo allaberigu waa khayr
ha yeeshee nin adhi qalay la ag tegay xawaalada arrinkiiyo muraadkii ugu wacay andaad kale kaasi waa amuur culus asalna diinta kuma laha nebigiina ma ogayn ilaahayna ma ogola ahda iyo durbaankiyo orta sacabka lagu daro lagu dhaxo alleylkii ururada xadrada tuma ololaha khuraafigu asal diinta kuma laha nebigiina ma ogayn ilaahayna ma ogola ummad yahay islaamkee ashahaadanaysaa ilaahii abuurtiyo udgoonow rasuulkii ummad yahay aqoonsani awliyada ilaah iyo ka ibliiska kala garo abley iyo nin waran dheer uskag iyo nin raamo leh addimaadda faralkiyo marka loo aqiimana aan ajiibin yeedhmada waxba awliyaan ahay yuu ku andacoonine anbad weeye kaasiye abidkaa iska ogow arrinkaaga yuu gelin nin ayaanka ramadaan dadku wadaaf xidhan yahay kiyoon aadin meel kale oo matada bannaysto ku afuray magaalada anbad weeye kaasiye abidkaa iska ogow arrinkaaga yuu gelin ka yaqiinta eedee israa'iiliyaadkiyo iftiraaga beenta ah ku awilay qur-aankee ku inkiray salaadiyo amaawiirta laga rabay eedaanna kaga tegey anbad weeye kaasiye abidkaa iska ogow arrinkaaga yuu gelin awliyaannu nahay iyo arbacaannu kulannaa ictiqaadka qaladka ah kuwan ku andacoodaa ereyada dembowga ah afka may ka daystaan yaa yidhi ilaaqtama asraarka yow diray arrinkaasi diintaba kumuu soo aroorine alla may ka yaabaan aakhiro dambaysiyo iilka may xasuustaan akhristaan kitaabada asalkaba acmaashiyo ma og tahay cibaadada haddii aan ikhlaas jirin ma aqbalo ilaahay ummad yahay islaamkee ashahaadanaysaa allihii abuurtiyo udgoonow rasuulkii ummad yahay aqoonsani aakhira sabaan iyo ami waxaynu joognaa ibliiskii la nacay iyo la ayeedo kufaarto loo adeego gaalkee islaamnimada dhowro asal raaca diinto xumahana ka iisho aayadaha qur-aankiyo axaadiista nebigana ku adkaysta goysaha halkaa markay maraysay waxaa soo galay xasan cabdi madar oo ku soo galay maansada la yidhaahdo ka cabsada ilaahay waxaanuu ku bilaabay hadduu yidhi abwaankii ina geeddi maansada kuwa nool erga u diro awliyo ma beenayn runtii buu abbaaro xaqii buu asteeye afka hoolaclamuu gelin suugaan ilwaadloo ruuxaan ibliiskiyo ibtilaynin shayddaan anfacaysa mooyee aflagaadda muu odhan anna waajibkaygiyo aan gutoo ammaanada ee bahay ifarayoo xaqa aan iftiinsho meeqaamka awliyo kuu aayar sheegee maqal ereyadaydan qof hadduu allaysto adjashii dhammaato aakhiro u hoydana 3 baa anfacayee ubad saalixiinoo u akhriya ducada iyo cilmi looga aayiyo sadaqa u jaariya isagaa gargaar iyo ergo kaaga baahane kol haddaan qof iil galay waa hore aboor cunay anfacaynin ruux nool maxaad ugu ilmaysaan qabri ugu wareegtaan maxaad aadmi liito intii siiba gabayoo irbad aan dungelinayn uga raadisaan nolol aadmiga ka noole ka cabsada ilaahbaa awood iyo karaamo leh kuwa necab ibliiskee amranow rasuulkiyo siduu yidhi ilaahay amarkooda raacee addeecee rumeeyee dhowree ammaanada aayadaha qur-aankiyo u dadaalo samahoo iimaanka lagu sugay awliyadu weeye qalbigoodu iilkiyo aakhiruu ku xidhanyo adduunyada sideedaba lama aha wax weynoo ifka kuma luloodaan allihii abuurtiyo awooddiisa mooyee aadmi kama cabsoodaan ehlu khayrka weeyaan isku uurfayoobo ka ajooda xumahoo ku walaala iimaan fooxliyo afmiishaar dadka cuna intoodii sharka aabbihii iyo afku xoogle weeye ha u qaadan awliyo allaahu akbar weeyo weynow ilaahbaa aqbalaadda ducadiyo baryo kaa ajiibo marka ay amuuruhu kugu fool adkaadaan adigoon ku hawshoon ruux kuu adeegoon aadmi kale u sii marin isagaa dhibaatiyo kaa ooda belado sharka kaa ilaashee aakhiro nin hoydo arrintiis cuslaysiyo kuwa aad dirkanaysaan ma baxshaan adduunyee alle mau dhawaaqdaan axadow tidhaahdaan awgayow la soo dhaaf
ammintii qasiidada sheekh lagu ammaaniyo idankiyo dabqaadada diin loo aqoon jiray awgayow la soo dhaaf axankiyo fidaba cune rajadiyo agoomaha abeerkooda naaxiyo ahminkooda qalan jiray awgayow la soo dhaaf wakhtigii afmiishaar iyo tuug wax aayira weli loo aqoon jiray awgayow la soo dhaaf sheekadii ibliiskiyo xilligii la odhan jiray sheekh baa abraariyo ow baalal yeeshaa badda oogadeediyo aydiyo hawada xulay malaaweyla orodee aan soo afmeersho tixda soo uruurshee samihiyo axsaanka ajar lagu helaayo waa adhaxda diintee alla aynu barine aamiinta idhaha ayaantaa qiyaamaha umalkiyo kulaylaha marka laysku ururshee xisaab laysku oogee oonkiyo haraadkiyo anfariirku uu jiro marka laba isdhalay iyo ubad iyo walaal iyo aabbo iyo hooyiyo ori iyo ninkeedii ay kala abraaraan isagaa shafeecee allahayow rasuulkii kuwa uu u doodee aftidooda qaadiyo ergadiisa naga yeel kuwa diinta oogiyo ehlu khayrka naga yeel ifka nolol barwaaqa ah rabbow aayatiinkiyo aakhiro xaggeedana ologii rasuulkiyo ehelkiisa naga yeel uduggii jannada iyo xuralcayn dhifaysiyo ishu waxaanay aragoo dhegtu aanay maqaloo aqli koobayaa jirin raalli ahaanshahaagii nagu sii allahayow aamiin allahayow halkaa markay maraysay waxaa soo galay xasan daahir ismaaciil weersame oo ku soo galay maansada la yidhaahdo haajayn shareecada isagoo u jawaabaya xasan cabdi madar wuxuu yidhi in dhoweydba maansada anigoon ammaamudin xumo lagu addimayaan maqlayaa ortiisoo rag abaaji yeedhmada isu soo itaashaday arligay ka bu'ayaan aanu sii abraaree jiiftoy amlaytumo ashkirgeeyadaydaay addingaab haddaad tahay irko magaca eebbo orodkaaga labanlaab aashaa jawaab celi eebada la tuuriyo awlaxanin daalini awlal yaanay kaa jarin marna ii ogsoonow halka aanadeenniyo utunteennu ay taal maansada ilaah baa aadmiga ku deeqoo ragga agan ka dhaansada oormirma galab lalo caku xaajo ugubeey abyan iyo la yaabeey marna kuma afceliyeen afkarooc warkiisee aliflayda maantuu nin abaaji goob yidhi ibaheeda furayoo unuggay ka dhimatee abyankaan ka dhayaya ka cabsada ilaahay aarankaa ku baaqow afgobaadsigaaga uurxumo ku ladhanbaa urugiyo ladh beertee hadallada engegene ufadiyo dabayluhu allaylkii ay keeneen waa oday ka sheekee balse ruux abaydina ilduuf waa u caadee anshax iyo hiddaa jira gabay lagu alooso udubiyo dhigaanay odhaahdiisu leedoo nin ijaaso haystiyo afarree nin foofsaday inay kala ildheer yiin adigoon ilaaweyn alaakoodii xaajada ologaaga dheere abtirsiin garawsho leh ku aroori doodaha runtu waa astaan cade adigoon afsaar odhan asraarna soo kicin ha awaalo faalloon ha aloosin raadraac arrin aan lahaynoo kala fiijo aadmiga ajar kuuma baxayee ha ajayn shareecada inuu jiro ilaahay ustaadkii ku baray baad afmiishaar ku sheegtee afku yaanu ku caddaan awliyada ilaahay iimahooda baadhbaadh ammintii ku seegto markii aad amuuraha qaybihii ilhaamkii usuushooda weydaa afyarkii ku qaadee aleelaale maandhow addin uma fadhiistee caalimkii islaamnimo kugu soo abaabulay abaalkii uu kuu galay haddaad asta yeelkaa waxse uurku taallo ah allabariga sheekhii ujradii u bixiyaad dab ku kala afuuftee iilmiyaanad aadeen awgeeddi xaajada indhuhuu ka tuuro aameel sidiisaad iska daba agoogtee ilinkaad maraysaa wuu iimo badanyo aar baa fadhiistee inan yahow bal soo joog waxse uurku taalliyo sida eebo igu mudan ummi baa nin caalima albaqraan u dhigayaa ololaha ku soo galay u akhriyey qur-aankiyo ahminkiisa ruuxii halkaa markay maraysay waxaa soo galay maxamed maxamuud dhagacune oo maansadiisa la yidhaahdo awliyaan u qirayaa waxaanuu ku bilaabay dhallinyarada ururtee aftaxow silsiladdii anna waxaan ku darayaa marka hore ducaan odhan aakhiro jannada taga adduunyadana faa'ida
ubadkiinna ubadkii waa inaad u aydaan nin hadduu abwaan yahay ummad waanadeediyo fikrad iyo aqoon iyo xikmad looga aayiyo wax u sheegis mooyee suugaanta idilkeed aflagaadda kuma daro nin silsilad aftaxay iyo axmed geedigii furay mar hadduu islaamnimo sida uu ka aaminay ku ekeeyey diintii hadduu oodo jiidhuu albaab xidhan garaacana wax u sheeg ha joogtee alla ilahe xujayn iyo itixaad ku sheeg iyo aflagaaddo ma lahayn abwaanno isu tegayow idilkiin dhammaantiin dhaliil baan arkayaa nin abeeso sheegiyo nin agoon tilmaamiyo awliyaa'u shayddaan ashahaado beeniyo intuba meesha kuma jiro afka iyo ilkaha iyo odhaah soo baxaysiyo sida loo arsaaqiyo sanka oo wax uriyiyo asmiciyo dhagaha iyo aragtida indhaha iyo addimo aan ku soconniyo fikrad iyo aqoontiyo aqligiyo waxgarashada sida ugu qurxoon baa loo abuuray aadmiga koonkana alla iska leh awoodduna u gaar tahay maalintuu ilaahay adduunyada sameeyiyo 7 ayaamood aadan iyo xaawaa la abuuray waaga laakiin 2000 sano yaa udgoonow rasuulkii nuurkiisu uuna ilaah baad jeclaado ka fadilay intii kale allahayow qiyaamaha inta nebiga raacdee u shafeeco qaadee ummaddiisa noqotee uu qaato naga yeel asxaab dagaalkii abujahal fircooniyo ka adkaaday gaalo diinta oogay baa jira awliyo ilaahay ikhtiyaar u siiyo qalinkii u dhiibo uu jeclaaday baa jira nin mawlid akhriyayo ku ammaanay nebigii eed muu samaynine ajri buu shaqaystee ma ogayn rasuulkii candacood ma noqotee nin weliba afkiisuu ku ammaanay nebigii ninkii hore wuxuu yidhi marka hore ujeeddada anigoo aan gogol dhicin aan idin su'aale awliyo maxay tahay aniguna waxaan idhi awliyo waxay tahay axkaamtiyo cibaadada ehel bay u tahayoo eedaankiyo salaadaha kama aakhiraanoo awliyadu waa taa nin allaylkii toosoo eedaamay subaxdii u sujuuday eebbahay awliyadu waa taa nin qur'aan akhriyayo hadalkii ilaahay uurkiisa geliyana ibliis uma yimaado awliyadu waa taa inankiisu gurayee cali guure weeye maskii buurta oodee argagixiyey dunidana baduhuna ka ooyeen aayar buu dugsiiyuu uurkiisa geliyee marka ay sidaas tahay awliyaanu qirayaa aw barkhadle waagu afgembiyey bucuuree jahligiina oodee diinteenna oogay alif iyo ba uu yidhi marka ay sidaas tahay awliyaanu qirayaa aw maama waagu eygiyo kufaarkii ambinaaye xaramkii ardaagaa berberabuu eebadii ka tuuruu isamkii ku qorayuu oo faha ku gooyee marka ay sidaas tahay awliyaanu qirayaa inta waalidkoodiyo udgoonow rasuulkiyo awliyada diiddana iyagaanu baqayaa ninka eebbe jecel yahay anna inaan jeclaadaa waajibbaabay igu tahay ina ay sidaas tahay awliyo barhkeed iyo aw daahir suufiyo ina diriirba weydii halkaa markay maraysay waxaa soo galay saleebaan carab ow siciid oo maansadiisa la yidhaahdo waa keli ilaahay waxaanu ku bilaabay ilaahii abuurtiyo amranow rasuulkii qof addeecay labadaba isimada macbuudkiyo awooddiisa kaashaday aadmigu dhammaantii haddii uu isugu tago arrin lagu muquunshiyo eebo kuma samayn karo waa keli ilaahay isagaa abaartiyo axamaale baahiyo ulatada kaliishiyo adhigabada daraniyo omos iyo kulayl iyo afagaale jiilaal ooda gooye lagu rida isagaa urdoogliyo ubax sabo ku yaaliyo egan lagu nimcaystiyo ay madheedh ku taadhiyey agaaliyaha roobkiyo onkod wada hilaaciyo ufokiciyo noo shuba isagaa islaaxiyo arrin lagu heshiiyiyo irdo nabadi taalliyo aroos laga ciyaariyo xoolo wada irmaaniyo aydin wada kareebiyo ugub caano badan iyo maqaar ooda loo dhigay igadh lagu salaaxiyo ibo xoorku duuliyo imtixaan barwaaqo ah amnigiisa lagu suga isagaa ibtiladiyo aramida timaadiyo eel cudurka keeniyo abasada colaadiyo
balaayada orgootiyo aaladaha wax lagu dilo amarkooda fuliyo itaal aanu socodsiin ninna kuma adkaan karo isagaa addoommaha anfaciyo hugoodiyo adduun lagu tanaadiyo aayo caafimaad iyo ubad lagu badhaadhiyo awlaadda lagu ladhay ayaan dhaladku siiyo waxa uu adkeeyiyo wuxuu ooda saariyo wuxuu awdo lama furo isha uu banneeyiyo albaabkiisa lama xidho irsiqiisa lama jaro inta uu arwaax iyo ajal gooye badana inta uu abuur iyo wax ekeeye badana arligiyo dhulkuu simay ninkii samada eegaa indhodaalis kala noqoy waxa uu ogsoon yahay waxa iman wax aakhiro waxa imika joogiyo awal hore wixii jiray aafada qiyaamaha marka ooga samadiyo arliyadu gariiraan uu afuufo malagii argagixiyadii suur xidiguhu abaadaan qorraxdana ilayskiyo araggeedu tamar gabo dayaxuna iftiinku alkumaaye laga jaro badda ololku leefiyo buuraha awaariyo abla seedhe laga dhigo maalintuu ilaahay mid kastoo adduunyada dulmi ku edyadoodiyo isla weynayaashii aarsatada cadaabtiyo arxangooye ku halligo maalintan adduunyada ubad iyo xigaal iyo oori kugu lamaan iyo aabbe kuu dhawaaqiyo hooyo kuu adeegtiyo walaal kuu ergeeyiyo abti kuu miciiniyo eddo kuu shaqaysiyo oday kula qabiiliyo ehel kuu hadlaa jirin ololkii jaxiimiyo balaayada asiibtiyo aayuxumada jahannama kuwa eedda qabay iyo markuu eego gaalkii aayadaha dafiri jiray ilimada fardowsiyo aqal lagu casuumiyo maalintuu abaal iyo ajar muumin leeyahay idankiisa mooyee maalintan itaal iyo amar kale shaqaynayn uumiyaha dhammaantii isagaa ableeliyo ayaan hoogga kulul iyo omas lagu harraadiyo indhagubada soo tuba ilaahii sarreeyiyo awalkii horreeyiyo aakhirkii dambeeyow siduu yidhi abwaan hore aw laguu wakiishiyo nin addoonku baaldhigay awooddaada garan waa ajal madhatay goortay wakhti loo asteeyiyo ayaanteeda dhimatee ifka nolosha laga raro aaskiyo xabaashiyo marka iilka lagu rido waxay ku intihootiyo aakhiro waxay mudan ogaanshiiya badaniyo ilaaheenna mooyee axad kale ma garan karo marka uu bateeyuhu afka gacanta ku hubsaday ninka yidhi awoowiyo sheekh abaadir ogolow awrta naga hallowdiyo ohow soo dheh baadida ergo noo shaqaysiyo adaa noo abbaan ehe abshirtiyo karaamada amni iyo barwaaqiyo ifafaala roobaad eebbe nooga soo qaad dadka ay aqoontiyo aragtidoodu taa tahay ambad jahwareeriyo asqowaali badana jasad iilka jiifiyo awga waayo hore tegey haddii uu adduunyada amar lagu shaqaystiyo ikhtiyaar ku leeyahay afo laga dumaaliyo ooridiisa furantiyo adduunkiisa dhaxalkiyo usha sooran lagu madhay maxaa arantidiisiyo aqalkiisa loo galay dadka ficilkan aaminay amuurtoodu culusa ibliiskiiyo liciinkii afka dhaarta ku hanjabay inuu lumin addoommaha aargudashadiisiyo aanadiisu may hadhin shirki lagu asqoobiyo asad oodan shayddaan maxaa ololka naartiyo oogta loogu gelayaa albaab toobadaa furan awliyo raxmaankiyo weliyada ilaahay inay ahabta diintiyo aayaduhu caddeeyeen erey murani kuma jiro waxse aragti dhaaf iyo asaraar ka joogaa ee kaanshiiyahoodiyo sida ay u noolyiin anigiyo aqoontay awlalada furqaan iyo afka sa'ala saa'ila hal ataaka insaan suuradaha ilaahay qofka soo akhriyey iyo indho muumin halacsaday 14 iyo sida oogta waa beri araggoodu kama lumo ammaantoodu wacana waa addeecayaashii iimaan laga run sheegiyo salaad loo aqiimiyo siko loo abtiriyiyo shanta diin islaam iyo amarada ilaahay oofinaya weeyaan axdi lagu heshiiyiyo wixii loo igmaday iyo
waa kuwa ammaanada usha samirka ku xafida addoon loo banneeyiyo ooridooda mooyee waa kuwaan ishoodiyo ibta laga dambaabiyo addinkoodu fadallayn garta eedda badan iyo hadday maragga aadaan asalkiyo xaqiiqdiyo runta kama ajoodaan aflagaadda badaniyo marka jaahil ku ambado edeb lagu xishoodiyo akhlaaq nabadgelyaad iyo aamus bay ku dhaafaan abka lala jihaadiyo aabiyaasha mooyee naf aan loo ibaaxayn ablaygoodu kuma dhaco waa kuwaan agoonkiyo ululiga miskiinkiyo ehelkiyo qaraabada astur lagu mariimiyo xoolahooda ku anfaca marka ay arsaaqdiyo oomatada la quutiyo isha deeqda hurayaan istus lagu majeertiyo ololaha bakhaylkiyo israaf iyo wax saydhsaydh aabigoodu kuma kaco awliyo raxmaankiyo weliyada ilaahay astaantoodu waa taa iyo ina kaloo badan waxse jira ab kale iyo awliyaa u shayddaan amarkoodu been yahay annagaa ajiibniyo annagaa ishaariyo aqbal iyo karaamo leh annagay albaabada eebbe noo ballaqan yiin marka salaadda la addimo ridaha makaad iyo xaramkaannu aadnaa ilaahii abuurtiyo ninka caayay aadmiga ee yidhi ilhaamiyo arbe weliya baan ahay ashahaado beenlow maxaa eebbo kugu ladhan wallee aaminkaa dhimay maansadu araar iyo ujeeddooyin badanaa irmaan jaraha qaadiyo afarraydu waa meel ilaahii sarreeyiyo aakhirkii dembeeyiyo keligii awoodlow keligii arrimiyow keligii arsaaqow keligii iftiinshow keligii wax oofshow keligii ilaahow siduu yidhi abwaan hore ow laguu wakiishiyo nin addoonku baaldhigay awooddaada garan waa halkaa markay maraysay waxaa soo galay siciid ibraahim dool gurey oo maansadiisa la yidhaahdo alla aamin waxaanuu ku bilaabay bismillaahi alifkiyo aayadaha qur-aankiyo idankiyo karaamada siduu eebbaheen yidhi haddaan ereyga lagu furin ulajeeddadaaduna ma ahaato weeye ha ahaato maansoo abshir aan nidhaahno ha aqbalo korreeye idinkuna abwaanow aamiin mar wada dhaha marka xiga aqoontii alifleyda hurusiyo oday laga dab qaatiyo axmed geedigii yidhi kuwa nool erga u diro iyo kii aroor hore jamhuuriye akhriyayee awliye u doodee istaaqfirullah yidhiyow abwaanada hirdamayee ulashada dareenkiyo isdhaafsaday afkaartow idilkiin salaan guud marka xiga ishaartiyo abbaartaydan toosani axmed bay ku socotaa aan ka boodo 10 ruux anigoon difaacayn cabdi aadan qays oo gurmad awliyaad noqon anigoon jikaarayn arartiyo tusaalii axmed ina hor keeno aan rabin ismaandhaaf ayaan odhanayaa talo ina wada marayso aayaha danteenna ah qorraxiba ayaanteed iftiinkeeda bixisoo aminiba xusuus lehe cabdi aadan qays waa ul ka mida astaamii ama aaladii beri lagu riday afweynee arligeenna guushiyo u horseeday gaashaan mar hadduu intaa karay geesi waa abaalkii in wax lagu xusuusto cimri lagu ilaasho ixtiraam la siiyee adiguna ogsoonow ina geediyow maqal anshax mudan abwaankuye nin asluub leh baatee yaan erey ku seegine abidkaa wax sheegmada inta kula asaagiyo aynigaaha gees marin una tudho da'daadoo legdin inan yar baa lehe haysla tuurin odayada ambaqaad kaleetana kuwa aastay ruuggee axmed soo hujuumee rawxaantow adeegow awliyada raxmaankiyo jinka eheladiisii midka idin ijaartee idin soo igmadayee aydun doonyaqaadkiyo u tihiin birgaydh adag idin saari weyne alle keli ahaantii udgoonow rasuulkii ergadii furqaaneed ma cid aan ahaynoo iigu filan gargaaroo la iftiinsadaa jira ambiyada la soo diray
ma awliye ka weynbaa adduunyada la keeno cid gaarina ogsoonto inoo hiilinayaa lagu rogay awaaro oo hintoodu furan tahay ilaah baana uuntee isma lihi islaam baa alla aamin dhaafo asxaabtii qubuurtiyo axad go'ay baryaayo anfacana ka sugaye hadduu jirana waa axad ambadoo habaabee allahayow ku soo celi islaax iyo wanaaggo iimaanka garansii aniguna tixdaydiyo waxaan alifka kaga baxay ummadnimadu waxay tahay in la isfaro wanaaggo xuma la iska reebee ruux kastoo islaamow ku ekow dariiqii udgoonow rasuulkiyo asxaabtiisu raacdo alle heer u soo noqo halkaa markay maraysay waxaa soo galay cabdulaahi cabdi faarax oo maansadiisa la yidhaahdo isla yaab una jawaabaya axmed colaad digaale qorane waxaanuu ku bilaabay aliflayda maansadu way iga horrayso mar dambaan ogaadee aflagaado diimeed lama eegan karayee awrka doohma lagu yidhi nin kastaa ha oriyo ha iska uubateeye af loo hayaa ba'ay dooduna inoo furan horta odayo fuulfuul cadarkiiyo udgoonkuu ku dhintaaye ma og tahay axad qaba bakooriyo inan yahow indhooluhu qorrax oogadiisa ah ma arkay ka sheekee dhegoolana ka awdalan onkadkaasi fiintiyo galowguba ka ooyeen afka qaba xanuunkana oontiyo anfacadiyo biyahaaba ugu daran alifka iyo laamkuna ummi way u siman yihiin ma og tahay ibliiskuba alle wuu yaqaanaa wuxuu dhab u ogsoon yahay inuu yahay ilaahay axad keligii waare ah mana aha aqoongaab balse ololka naartiyo wuxuu eebbaweynuhu ugu qoray cadaabaha waa ihaanadiisee addoon saalixoo wacan ixtiraam daraaddii u sujuud la yidhiyee amarkii ilaahay iska diiday uu yidhi aniga ka khayroon idinkuna sidii baad ixtiraamka nebigiyo ambiyada la doortiyo awliyada ilaah iyo ehlullaahigoo idil kibir iyo isweynayn darteed uga irdhowdaan afartaa anoo digay aliflayda maansadu iba furatay naasaha ma sii igadh salaaxaa ehlullaahigoo idil afka maugu hiishaa waxaad uurxumaan iyo umal iyo xanuun daran u qabtaan ciddii jecel akhyaarta iyo saadada dad islaamah oo qiray allahooda weyn iyo udgoonow xabiibkaad ku abuurataan been dadka waad afqaaddaan hadda waad aqlaashaan wax kastoonay odhanoo uurkooda soo marin idinkaa ku sheegee yaa asnaamta caabuda qofka ruux islaamoo iimaan ku tegayoo aakhiro u hoydo iil iyo xabaal galay u baryaa ilaahay ma alluu ka dhigayaa mise amarka eebbuu aqbaluu ku diran yahay mise adiga taadii waa gaal ishraak falay afartaa anoo digay aliflayda maansadu iba furatay naasaha ma sii igadh salaaxaa ehlullaahigoo idil afka maugu hiishaa aarkii warsamo sheekh iyo shamaxbadooddii alle haw gargaaree xaqa way asiibeen aqoon bay ku doodeen aflagaado may tidhin balse ina digaalow horta idinka tiinani ma afkay bannaanbaa dad islaamah oo qiray allahooda weyn iyo udgoonow rasuulkaad abujahal malcuuniyo abulahab ku sheegtee sawdigaa ifkiga galay uurxumo gabowdiyo aburbaad hunqaacdee miyaad soo afdhaqanayn hadal wuxuu ammaan yahay inta aanad odhannine kol hadduu albaabkiyo afaafdhaafo mooyaan aakhiro ka meel dayo halka uu ibliis dhigo waa ololka naartee aayaadka mawluhu awliyada ilaahay ku ammaanay ee badan daliilmaad u haysaa aqoongaabka yidhiyow hadduu araggu kaa lumay indho kuma noqon karo ayaantuu rasuulkii u mudnaa addoommuhu dhashay ee adduunkiyo ifku wada siraatee uurxumo dhammaatee insi iyo malaa'ig idilkood farxeen baad anfidee maxaa tahay ayaa kaa dambeeyo kugu shubay afkaartani dhalashada udgoonaha ixtifaalka loo dhigay nin kastoo inkirayow
waxaad tahay ibliis iyo uurkagaal munaafaqa annagaa daliil iyo axaadiis u haynee isagaa rasuulkii xusi jiray isniinaha ogow dhalashadiisoo soom buu afxidhan jiray aslaynkay ku taallaa adigaan si garanayn afartaa anoo degay aliflayda maansadu iba furatay naasaha ma sii igadh salaaxaa ehlullaahigoo idil afka moogu hiishaa qalbigii engegayee omas iyo abaar qaba ma anfaco daliilkuye iimaan darnaan iyo olol buu ka qaadaa inuu yidhi rasuulkii abiilahab ma maqasheen anuu dhalashadaydii ku farxoo addoontii ifkii aan u soo baxay u wargaysay buu yidhi adiguna xor baa tahay arrintaa darteed buu isagana ilaahay ku ilaaliyaayo yoom kastoo isniinaad uga yara khafiifshaa ololka iyo naaraha ilamaa qiyaamaha adiguba qiyaasoo hadduu gaal ilaahay ku abaashay faraxii dhalashada udgoonaha sidee ruux islaamoo lagu ababshay aayaad ixtiraamay nebigoo farxay loo eryaayo naar loogu ololshaa ma allaa dulmiga jecel xaashe ee aqoon yare adigaan wax garanayn waxaad tidhi afxumadii orta iyo mashxaraddiyo dumar alalagleeyo u mashxarada nimankiyo dhaantada ibliiskaa haddii uu amiirkii ifka cumar ku nool yahay waxay aniga ila tahay inuu idin ulayn laa anna waxaan ku leeyahay orta iyo mashxaraddiyo dumar alalagleeyaa ayaantii madiinaad u mashxaraday nebigoo dafka iyo ammaantaba xabiibkaa u joogoo istareexay oo faray inay sii wadaanoo cumar baa ogaayoo haddaad adigu moog tahay aslaynkay ku taallaa waad si ka indhola'dahay waxse dhaba amiirkii hadduu maanta iman laa ushu waa sahaale inuu seef unuunkaba idinkaga idlayn laa aw yuusuf maamiyo ina macallin cumar iyo guuriya aways iyo cabdi ina ayuub iyo abaadir iyo saylici culimaa'udiinkaad tidhi inay ahaayeen awliyo daliilkeen aqoon maad dalbaynine muran baad u jeeddee anaa kuu jawaabiye colaad ina digaaluhu odaygii ku dhalay iyo inuu aabbahaa yahay adiguba daliilkeen axaadiis saxeexiyo aayaduma haysaa sow ma odhan ilaahay noloshani adduunyada ninka ku indhobeelaa aakhiro dhexdeedana waa indhoolahaas uun wa adallu sabiila iimaan qalloociyo ictiqaad marooraan allatiisa daayo axad loodiyaa jirin dadka lama afqaado been lama aloosee awliyada ilaahay waa addoommo khayr leh alle kama dhigaynee isla yaab digaalow ayaantuu jimcuhu galo mawliidka la akhriyo haddaad tidhi aqoon yare axaadiis saxeexiyo aayaduma haysaa annagaa u haynee ma iimaansanaysaa wuxuu yidhi udgoonuhu axadkii samiyo khayr ummadda u sunneeyaa wuxuu heli abaalmarin cid kastoo amuurtaa ajri looga qorabuu in la mida intooda isaguna helayaa iyadoon wax laga dhimin ilamaa qiyaamaha aslaynkay ku taallaa adigaan si garanayn salafkiiyo islaaxiyo itixaadka aad tidhi culimaa'udiinkiyo fuqahada ha eedayn ma afkoodii baa tahay dadku ha ku ogaadee ma irhaabi baa tahay ma alqaacidaa tahay halkaa markay maraysay waxaa soo galay mar labaad axmed colaad digaale qorane oo maansidiisa la yidhaahdo awrkiraale isagoo u jawaabaya cabdulaahi cabdi faarax waxaana uu ku bilaabay asraarka ma aqaan ma inkiro xaqiiqada suugaanta abidkay aflagaaddo kuma daro kuwa diinta aasiyo ma addeeco gaalada alle waxaa u gaarka ah addoon lama wadaajo awliyo ma siin karo ma egmado xawaalada mawliidka ma akhriyo bidco kuma ugaadhsado awyada xabaalaha ku abaaday waa hore ninka oogta waa beri intuu ido u gowraco ubad iyo arsaaqiyo ka codsaday adduun badan inkastuu acmaashii abujahal la cayn yahay mushrik kuma idhaahdee sida aaran baadiya waan oohobeeyaa maatida agoonta ah marka aabbahood go'o sida weere aaduya adhigooda kama cuno axan iyo fidiyo agas abley ulama soo baxo ma afaysto toorrida
marka hore aslaynkiyo camalkii asxaabtiyo culimmada usuushiyo inta lagu ijmaacaan amarada ka qaataa ma ogoli khuraafaad dadka lagu addoonsado ruuxa eebbe caasiyey ukhwanama dhex taallo ehel iyo tol kama dhigo alle keliya mooye axad iga dambeeyaa kama jiro adduunyada ibtidaa'i maalmahan afarrayla sara kacay dhusha kulama boodee arday iyo sidii bare waan ku yara edbinayaa awrka doohma lagu yidhi waa erey nin hore yidhi waxaa tiriyey iidaan lama xado abwaanada afcaddow dameerkii ayaamaha barwaaqada intuu uurka buuxsaday afarqaaday ee yidhi ashkir dananayaan ahay miyuu aadanow faras orod kula tartamayaa orgigii ratiga yidhi atashaan ka jarayaa ma abbaari karayaa ilkihii iyo xaaskiyo afka nibiri ruux galay alle bixiye mooye irsiqma u dambeeyaa dacwguna allaylkii hadduu aar ka dabaciyo markuu eego daymada ma adkaysan karayaa arbihii bakayluhu addimada iskaga maray inuu adhaxda kala jaro ma awoodi karayaa adigiyo atoorkii afka geriga tiigsaday arrin ma isku dhaantaan afartaa ekeeye abqa suufi loo qubay markuu qaadka ku afuro sidii adhi kaliileed ama ruux indhoolaa oodaha ha jiidho ha iska abab xumaadee annayay irmaantiyo shaxdu ila abraarine axmed geeddi maansada xilliguu abaabulay 4 sano waxbaa dheer 5 way u eeg tahay horta awrkiraalahan hadda soo ambaabiray awal hore xaguu jiray aar kuma sifoobee arnabkii warsamo sheekh ka araday caqiidada hubka lagu idlaadiyo markuu baasku ku onkoday wuxuu uubateeyo afka gacanta saaraba asqad iyo wareerkii ahee muusanawgii ma aduug soo helay erayadan daciifka ah meeshiyo ayaantii miyaa ururinayseen ina xaaji cali iyo cumarkii amuuraha ka abbaaray halistiyo xasankii araaraha ka cabsada ilaahay ku afgooyey heestiyo anigiyo saleebaan unugtii 6 ahayd ma og tahay abwaanadu inna eed kamay gelin utun hore ma daba socon maansada nugbaadka ah alif layda lagu furay waxa loo agaasimay fooxlaha asqoobee qabriyada ka ooyo rabbigii abuurtiyo awliyo la kala baro waxse kiciye aramida qofkii inta yeeshaa haddee meel agtiisa cirka eebo loo gano argagaxa ka salalee horta been abuurkiyo iftaruhu ma fiicnee culamaa udiinkii u hayaamay aakhiro kufri bay ahaayeen ajandaha kumuu jirin inna gaalo kuma odhan anna cararta kuma darin xilliyada abaaraha abnacdiyo kulaylaha marka xaalku adag yahay ruuxii islaamee inuu eebbe ka cabsado aadmigu ka marakaco inoo bari ilaahay waad odhan karaysaa waxa falay asxaabtii balse waxa shuruud u ah ifka inuu ku nool yahay adna aad la olog tahay afartaa ekeeye abqa suufi loo qubay markuu qaadka ku afuro sidii adhi kaliileed ama ruux indhoole ah oodaha ha jiidho ha iska abab xumaadee annayay irmaantiyo shaxdu ila abraarine ina macallin cumar iyo guuriyo aweysiyo cabdi ina ayuubkii hadiis lagu xabaaliyo abaadiriyo saylici ma allah u baridaan mise xoolo aado naftu ku istareexdiyo amni iyo barwaaqiyo inamaa ka tuugtaan aqisnaada qawskiyo iyo gargaartu waa maxay hadduu weli ikhyaaroon isha loo marmaran jirin beryo soo ahaan jiray marka iilka lagu rido u duceeye mooye anfac moodayaa yidhi qudbiyadan agteennee aw yuusuf kownayn odayadu ku sheegaan kuma aasna meeshee jinni iyo ibliis baa ilays uga siraadaye soomaaliyoo idil afarteeda gees baa beryo looga iman jiray waxa loo aqoon jiray ninka aado dhowr jeer baydkii ilaahiyo uma baahna xaramkoo xajku wuu u idil yahay arrimii ka dhici jiray waxa iila yaab badan afadaan carruur dhalin wuxuu sheekhu odhan jiray marka hore ajuurada awliyada soo bixi cadarrada udgooniyo uunsiga haweenkiyo foox iyo alaab iyo idan iyo wanweynkeen intaa waxa ku xigi jiray wuxuu sheekhu odhan jiray dhagixii alluubnaa rimiyaha la odhan jiray ku fadhiista ooryaha intaa waxa ku xigi jiray wuxuu sheekhu odhan jiray inan iyo midduu wiil odaygaagu kula rabo afka lagama sheego waxa uurka jiifiyo qalbiguu ogsoonye niyaddaada ku adkee
inkastoo amuurtaa ka ilbaxay dadkii badi inta weli dawaaftee ku asaasaqdaatiin garhka yagolka awgii lagu aasay waa hore inuu roobka karameed ku manaystay aadmiga ufad iyo daruuruhu amarkiisa qaataan ka onkodiyo oo shubo inta weli ku doodee akaakowday baatiin afartaa ekeeye abqa suufi loo qubay markuu qaadka ku afuro sidii adhi kaliileed ama ruux indhoole ah oodaha ha jiidho ha iska abab xumaadee annayay irmaantiyo shaxdu ila abraarine horta udawalwaalkaad ku astaysay faallada inuu uduga necab yahay anigaa ka marakacay waase erey su'aale aayadaha qur-aankiyo ummahaadka dhowrka ah marka ibaha laga furo la akhriyo shareecada ninka kabaha ka ilada isagoon wax loo dhimin umal iyo calool xumo dadka kula akeekama horta iyo durbaankana istareex la sara kaca garta lama aqlaalo xaqa lagama eexdee labadeenna oofood iyoma walwaal u eg ama ay astaantiyo anshi badan wadaagaan asalkaba yuhuudigu ogobay nasaarada wuxuu yidhi ilaahay ruuxii islaamee iimaanka qirayow ha ka dhiganin awliyo arrinkaaga maamula asal raaca gaalada arxan kama dhexeeyo waxa laga ogsoon yahay cidhifyada adduunkee labadeenna oofood waxa uurka kaafira hadba kii addeecee u adeega nacabkee isticmaarkan maantiyo awal hore kuwii jiray horta yow ilaaloha abiilahab haddaad tidhi cishadii udgoonuhu adduunyada u soo baxay farxadduu la oogsaday naxariista eebbuu aakhiro ku helayaa ambad jaahilaa tahay israa'iiliyaadkiyo axaadiista shiicadu asal kuma la diintee isagiyo islaantii amranow rasuulkiyo asxaabta dhibi jiray inay ololka jahannama ku abaadi doonaan waxa yidhi ilaahaye tabadyadaa abiilahab ma midaan aqoon iyo umidhegolo baa tahay mise ruux agnaanoo ibtilaysan baa tahay afartaa ekeeye abqa suufi loo qubay markuu qaadka ku afuro sidii adhi kaliileed ama ruux indhoole ah oodaha ha jiidho ha iska abab xumaadee annayay irmaantiyo shaxdu ila abraarine nebigii ilaahay arladuu ku soo koray ayaantuu ka haajiray wuxuu sii aqoolaba iridaha madiiniyo ummaddii ku noolayd amintuu ku beegnaa agab iyo daf ii tuma iyuu yidhi ansaartii axad qudha ma sii faray amranow rasuulkii maalmaha isniineed anfacada ma cuni jirin ilaa fiidka la addimo ha awilin xadiiskee uma eega meeshaad u daliishanaysee miyaa idinku soontaan wuxuu yidhi ilaahay haddii aa ijeceshiin itibaaca nebigee miyaa idinku raacdaan afartaa ekeeye abqa suufi loo qubay markuu qaadka ku afuro sidii adhi kaliileed ama ruux indhoole ah oodaha ha jiidho ha iska abab xumaadee annayay irmaantiyo shaxdu ila abraarine bidco laguma oomo been lama afuufo ajar lagama doonee afdintaad murtida dhigay weli maad asiibine dibi oofa weyn iyo ida gorod madow iyo inta awr la gowraco bidco laguma oomo been lama afuufo ajar lagama doonee afdintaad murtida dhigay weli maad asiibine dibi oofa weyn iyo ida gorod madow iyo inta awr la gowraco ixtifaal ha lay dhigo inuu yidhi ma haysaan ina madar siduu yidhi malaa weelo orodaye waxba yaan awaaraha ku afrogin miskiinkee hadduu geed engegan yahay marka roobku ku onkodo intuu soo awaalbaxo inuu ubax ka soo kudo laga eegi maayee salaf iyo ikhwaankiyo itixaadka gaalada awlaxa la gaadiyo ururada islaamkee tawxiidka ku anqaray abjad yahow haddaad tidhi argagixiso weeyaan waa erey yuhuudigu afka kuugu tuuraye mabasaas amxaarada u adeega baa tahay halkaa markay maraysay waxaa soo galay cabdirashiid jaamac maxamuud oo maansadiisa la yidhaahdo ardaal una jawaabaya shamax iyo cabdulaahi cabdi faarax waxaanuu ku bilaabay alif leydan curatiyo laysku aragta haatani laga oogay beledkee nibba aa ka soo galay itaalguurka faallada aaray codkeedii ha ku alalaglaysee aniguna god baan digay markii uu ilaahay soo diray udgoonaha waxyigiyo ilhaamtana loo egmaday jibriilee
aadamaha dhammaantii lagu yidhi islaamoo aayadaha qur-aankiyo abulqaasim raaco aamina la soo faray iyadoo dhammaystiran cajab iyo afkala qaad ninka yidhi inbaa dhiman anigaa arkaayo imikaan ku darayaa gudcur ees madow iyo alleyl buu gudaayaa bidcaduna albaab furan ama shaqo u tahayoo axmedow daliilkeed qalinduurre awwo intuu tago aroosyada marka awla loo dhigo ayo laba aqaarood cuno uudhan oo xidhan markuu iligga saaruu ku afuufo qiiqana u dudubiyo mawliid isagoon macnaynayn ku asqeeya gabayada alifeen masaaridu aayaadna ugu dara laba aan iskayin iyo axaadiis daciifana ku adkeeya hadallada markay oon la daataan iyagaa dareeriye intifaac maxaa hadhay nin og baa ka sheekayn afartaasi duuduub u liq waa kiniinne ma araartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane wax la yidhi abeesadu aradka iyo kaymaha u ekaanshahooday ummadaha kulaysaa anna aaxda damaqa leh ajal uu wadkeed galay ninka yidhi wax ii qabo isagaan u baqayaa maxaa yeelay aadame ifka laga carraabsho dadku ugu dambayntii oogadiisa maydheen uskagiina laga tiray isagaa wax qaban kara andacoodka beentaa u ekaansho diimeed ibliis baa ku hodayo uubbay ku daateen afartaasi duuduub u liq waa kiniinne ma araartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane cabdow odayo fuulfuul aleelaalayaashiyo uxud iyo hangaralaha shayada udgoon iyo ma ursaynin cadarkee adigaaba sheegee ololaha tijaabada imisaad kulaysaa ma dhalooyin idil baad ku idlaysay oo madhan mise waa awaal iyo iska sheeg wax aan jirin dhanka kale islaambaa awrtii rarnayd iyo adhigiyo haweenkiyo alalaaska geediga iyadoo arkaysay iska tidhi mageeddaa adiguna sideedii waa adigan abraaree indhoolaha ku wiirsaday indhooliyo dhegooliyo afdhalowga kuwa qaba aflagaadadaadani aniga ka xaalsiin afartaasi duuduub u liq waa kiniinne ma caraartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane dhanka kale icraabtiyo eemaasha qiradiyo axaadiista sugan iyo soo arooristeedaba cabdulaahi soo baro ambiyada la doortiyo ixtiraamka nebigaba idinkaa ilaawo awliye ka doortee injineer colaadiyo axmed geedi dheeraad iyagiyo xirtooduba afka kama dhigaanoo amintiyo salaadiyo afurkiyo quraacdiyo duhurkiyo alleylkaba way ku eleladaanoo aad bay u jecelyihiin afartaasi duuduub u liq waa kiniinne ma caraartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane shaxda aayisteediyo afarlay nin loo degay iyo oodan kala rogan iska gurasho mooye geeddi uma bannaanee injineer colaad iyo axmed geeddi dheeraad haddii ay yidhaahdeen kuwa nool erga u diro wixii ay awoodaan haysadkayna saaxiib dhanka kalena eego u ducee qubuuraha injineer colaad iyo axmed kuuma diidine awr lagu qalaayiyo ictikaafna waa maya adiguna daliil iyo uma haysid aayaad intuu tago qubuuraha inuu nebigu qali jiray adhiga iyo geele imtixaanka bidac iyo ibtilaa ku haysee ka ajooda halista afartaasi duuduub u liq waa kiniinne ma caraartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane wax la yidhi ayaan hore nin la aasay oo go'ay kabuhuu iladay iyo arradbeel wuxuu qabo ayaa dhaama sheekhow mana aha ujeeddada ixtiraam la'aan iyo ikraam li'ida maydkee anfacay u jeedaan qof hadduu u yeedhana isagaa ishraag falay yaa asnaamta caabuda waa su'aal abeer ahe ninka awliyoo yidhi kuwii iilka joogiyo u yeedhyeedhay meydtida aduu sheeg wuxuu yahay maacmaa basiir iyo eber iyo dambaa tahay mise waad ag maraysaa aayadaha qur-aanka ah abdulaahi ruux lumay halka uu u jeediyo iftiinnada baxayuu aqalkiisa moodaa anna waxaan ku leeyahay shamax ereyadiisiyo arartaa la baydhoo adhaxduu isgooyee ma adeeryadiibaa
nimankii ugaarsaday ableyday u waayeen adimada ku qodatee iyadii ku gowracay maculmoog asqoobaa isaguu ogsoon yahay abtirsiinta shiicada iriqooda halistaa mise waabuu aaminay afkaartay qabaanoo iyaguu u joogaa waxse igaga sii daran abdullaahigii yidhi xaqa way asiibeen afartaasi duuduub u liq waa kiniinee ma araartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane ma afkay bannaanbaa miyaad soo afdhaqanayn qof islaamah oo qiray ashahaadadiiyo iriddii islaamkiyo edeggiisa soo galay gaalnimo ku eridee ma acmaabasiir iyo eber iyo danbaa tahay maadigaa aqoon daran mise axadka waanada ku anfacaysa sheegee danta kuu abhinayee kuwaad nool erga u diro ku araartay maansada afartaasi duuduub u liq waa kiniinee ma araartay weedhaha ninka iibsanayow aaqiibo kuma helin mana soo amaahane ayaantuu rasuulkii u mudnaa addoommuhu ifka uu u soo baxay amay dihatay aamini awalkaa rabiic iyo inay tahay 12 axmed dhalashadiisii imisaatan qowlbaa la isugu khilaafaa 300 ayaamaha 50 iyo inaha dheer maalin qura ka eegtow sanadkii isniin baad u daliishatoo tidhi nebigaa afxidhan jiray ixtifaalna dhigi jiray been abuuradkaagii waadigaa isburiyee 50kii isniin qura waxaad uga cabbaarteen noo sheeg ujeeddada annagaase kaa jecel axmed iyo xabiibkee haddii ay dhab kaa tahay inaad nebiga jeceshahay ambaqaad bidcaad iyo adoon raadin annagaase kaa jecel axmed iyo xabiibkee haddii ay dhab kaa tahay inaad nebiga jeceshahay ambaqaad bidcaad iyo adoon raadinayn qiil sunnihiisa uun raac dhanka kale ka eegoo awalkaa rabiiceed andacood ku sheegteen haddii uu ayaan kale ixtifaalka mawliid axad galo 12 waabataynu aragnee ma u kaadinaysaa atoorkii jud lagu yidhi adiguna sidiisii dabin iigu orodee goormad indhaha furan midda kalena iidaha islaamnimadu sheegtee ogoshahay shareecadu cabdulaahi waa 2 odhaahdii ibraahiim inankii ismaaciil orod gowrac lagu yidhi iyo waa afurisada sannadkii ayaan qudha waydinkaa astaystee inta kale ka seexdee ma ujuuradiibaad iska ururisaanoo ahminkaad xeraysaan iyo awrta goolkaa aw yuusuf maamiyo cabdi ina ayuub iyo inta iilka jiiftana alle haw gargaaree anfac noole uma laha irbad iyo dunteedana isma gelin karaanoo wixii ay acmaal iyo ajri ay lahaayeen aakhira u qaateen hadduu geed engegan yahay inkastoo waraab iyo lagu duwo iliilado amuu roob onkodayaa ilifaha u qaaduu agtiisiyo hareeraha uub iyo ka qodo bohol kuma oon baxaayo ubax lagama naawilo wuxuu yidhi ardaalkii ambadee hallaabee ehelkiisu soo helay berri tabaanaa lumi iyagana dhib ugu filan anna waxaan ku leeyahay ayaantuu jimcuhu galo mawliidka la akhriyo ma ogayn rasuulkii mana falin asxaabtii ilaa taabiciintii idinkaasa keenee ma aqbalayno saaxiib salligana ayaan qudha ku ekayni maynee abid waannu wadaynaa iibkiyo qur-aankana ahay waad mushtaegtee adduunyadu ma goysee ma idinkaa bilaash iyo aakhiro daraaddeed ugu dhiga carruuraha mise waan u simannahay musxafkaa la ururshee u daliishigaagii bidco iyo alooskeed annagaa daliil iyo axaadiis u haynee wuxuu yidhi udgoonuhu amarkayga qaatoo anigiyo asxaabtay halka ay maraan iyo ku adkaysta khulafada iyagaana falaytaa addinkiyo salaadiyo elektriga kala garo anaa kuu saxayee waa aalad lagu falo howlaha adduunyada isticmaalideeduna daliil umama baahnee ha isku qaadin oodaha halkaa markay maraysay waxaa soo galay guuleed yuusuf axmed oo maansadiisa la yidhaahdo aadamaha tuugina isagoo u jawaabaya xasan daahir ismaaciil weersame waxa uu yidhi bismillaahi alifley alle waaxidnimadii farad iyo addimiddii waa amare fulintii jidka saxan ilbixintii nin ku sugan ammaantii nin ambaday tilmaantii
nin asqoobe hagiddii u midaadahayntii ardal dhiirigelintii olol naara damintii arrin jira ka hadalkii urshi reerogayntii anshax suuban waatii lagu ababinaayee yaa yidhi ajayn iyo waa alalad maansadu aabiga xadgudubkaa adyadda iyo kibirkaa horta yaa ammaamuday ashkirgeenyo yaa yidhi idingaabta gamashiday yaa yidhi adaaduri orod yaa ku baratamay yaase lees eryanayaa loo ataatigelayaa awlaxa nin daallani kula soo ag joogsaday talow ma indhahaagaa maxaa waalid inankii loo kala abhinayaa arbushaaddu waa maxay ninka dhirindhirooy edeg kugu oodan waayaa af libaax ku geliyee hadda meeshu waa ay waaqliyo ageegira erginba hala joogaan ammin weeye goortuna abkay habar dugaag iyo curri sida abeesada ululaaxiyaa jira wax la yidhi sabeen ugub waxa aar ka ridan kara ragga kaan aqoonine macalool adaygiyo ku ayaanso gabayga cidda keentay anafada dibna ha ugu aydee bal ha laysla eegee waa arartaakow mar labaad abwaankii maansada ilhaamka ah idhankeeda curiyow axmedow addoommaha rabbigood inkiriddiyo asraarka kula jira ma aqoon la'aan bay abujahal ku raaceen ma markay arkeen bay runta ka indhosaabteen ragga doodda omuska ah iidaan ha lagu daro lagu aacay ba'ana kuwa eedda daba dhigay midhna aan addorose halla uubateeyee oo howda nimankani ma ku imanayaanoo may naga aqbalayaan mise caano gudubtiyo urgumay kordhinayaan ka awilo sidii roon ka ishaaro saadaal ku darsana insha allaah midhna aan afeeftee tawxiidku unugiyo aasaaskii diintiyo ruknigii arkaantiyo ashahaadi weeyaan ililaaq ma geli karo eexiyo dangaarihii ma ifsaadin karayaan waana lama abbaaraan midhna aan adkeeyee hala yaabin alifley ragga aala reebnimo macsida u abaabulay yaanay aamakaagiyo umal waara kugu noqon fooxluhu imlaagu ardayda u sharaxayaa waa waxay ambiyadii ummadda uga digayeen abtirsiimo dheer iyo isir buu tirsanayaa ugub ma aha xaajadu mawduucu waa abad waa ololo taxane ah waa arami soo tiil eelkoodu meel buu ka abuuba xidhanyo ugxantii waliidiyo cutbaha inigiisiyo umaya ibnu khalaf iyo kuwii laata aaminay la ujeeddo weeyaan ictiqaadku waa kii taariikhda dib u eeg huud iyo ancaam iyo albaqra iyo sumarba adiliyo xujo u yaal axaadiista sanadka leh ee abu hurayriyo anas wariyey faalle salafkiiyo akhyaartii maxay ka istimbaadeen alumma iyo muwadda ah ubuucdooda lagu qoray ku ijmaacday culimmadu ifafaalka nimankani wuxuu kula eegaan kuwuu nebi ibraahim iyagiyo asnaamtood sida udiyo jaanteed u fiidhuu ka haajiray axmedow abwaanadan ictisalayo diintii ibtilaadku kaga dhacay ambadkay ku sugan yiin iimaha nusqaanta ah waxay ku andacoodaan caqligaa ka adabsada kuwan ay awoowow na ajiiba leeyiin insaan makhluuqoo la abuuray weeyaan misna waa dad aakhiro ifka way ka guureen aafooyin meeriyo belediyo inkaaraha wax ka dhaca adduunyada inay amar ku yeeshaan ma awoodi karayaan iska daa iraadiyo arrin laga rajeeyee wararkiyo akhbaaraha waxba kama ogaadaan ajashoodii sawtay beri hore idlaysteen sawtii la aasee lagu rogay awaaraha sawtuu uubta luxudka ah ehelkoodii kaga tegey waana meyti ku abudhan iilkiyo xabaashee maxay kuu anfacayaan ama kaa anfinayaan midhna aan idhaahdee axmedow abwaanadan hebelow irkanayaa odayaal cuskanayaa asaaciido jaahili weli uurka ku hayaa waa niman iblayskii aayaha ka weeraray inqilaabay shayddaan abataqa ka raariday ka asiibay garashada ka irdheeyey diintii ka ilxaaday samihii kana awday hilinkii waa niman islaamkiyo xaqu oodan kaga jiro
shubuh lagu afuufiyo kuwaas qoobay deebici waa niman ishraaggii ilinkiisa nagu furay midna aan iftiishe awliyo qur-aanka alle noogu sheego waa ruux ikhlaas iyo iimaan markuu helay camalkiina ku ayiday ashaaciriyo qaadiri midna kuma astaysno qolo kuma arooro qabri kuma dul iidee sunnadaa amaarado u samaysay adagoo aasaaraheeda oogada ka muuqdo waa ehelu tawxiid ka ilaashan bidaco iftiraaq ka nabadgalay midna weyga alifley anafraaciddeedee mawliidkan agabsiga arahdiyo qadhaabsiga loo bixiyey axankee orintiisa qoranow allaberiga loo rogay ilmaheenna waatii lagu ababinaayee labadii aroosana lagu sii akhriyayee agoomihiiyo caamada laga iibinaayee ma ansixina shiicada umulmu'miniintiyo asxaabta caydaa asalkiisa keento israa'iiliyaad baa laga soo ijaartee ninba aragtidiisuu ikhtiyaar u leeye haddii loo itaal helo miyaa diinta ilig iyo oon loo beddelayaa ixtifaalkan sanawiga mawliidka la akhriyo ahminka iyo xoolaha aalaaba lagu cuno ku aneexo gurashada waxaan lala aleegado hadday diinta agan iyo aasaar ku leedahay ma ameerikaan iyo hay-ado ajnebiyo eglan looga taliyaa ku ajuuro bixin la runtu waa ammaane maxaa loo arjumayaa ma ibriiqi baa weli laysugu addimayaa nin aleelo ridayo aayado ka faashiyo ma weluu afmiishaar arligeenna jooga xasanow allaylehe runtu waa astaan cade ka indhaha ka ridayaa awgeeddi maahee waa adiyo kii yidhi hebeloon iqiino awliyo ahaabaa abris iyo masnool cunay irkigiyo layaab lehe anfariirna gelisaye waa alalax weydee tixdu kaa arradanaa awliyo ma bahalbaa aaduga hayiiliyo ma abguri gadoodaa ma orgome dadqaadaa ma aboodi duulaa ma dugaag abraaro oodaha jibaaxaa mise waa dilduuftaye waa ashraaf karaamo leh ibaduubka maansada aliflayda gebagebo talo ururinteedii waxaan leeyay odayada suufigu usha u sido abaanduullana u yahay ilbaxoo garaadsada waxba sheekh aways iyo abadaar ma tarayaan awmaame suufka irbad kuuma gelin karo weligaa afka u dhuub eedaan dhegta u saar ku aloose qaylada ictikaafka ramadaan isaxaaqa maydhsii ku aqooli geediga hadba dhinac ka soo aad ayaa yuuro beenbeen egmo yuusuf kownayn ilmada uga ragaxsii ha ku aamusiiye aaweydha hiilkii aargudashadaadii ablaydii iyo warankii iyo eebadaadii maantaba israa'iil ha ku oofagooye erey kuuma celin karo maba uuna waa mayd arwaaxdiina laga siib isam weeye waa hore dadka ruux la odhan jiray dabadeed la oofsaday inta hooday oo tegey inqidaacay camalkii lafasula aboor cunay ma adeegi karayaan abaal kuuma gelayaan amni kuuma sugayaan ubad kuuma dhaliyaan arsaaq kuuma qorayaan utin kuuma dhiciyaan axdi kuuma fuliyaan abaar kaama jebiyaan sanamkiyo andaadiyo ergo waxaad ku sheegtiyo awsaan la kaashado ka nasahan ilaahay axad looma sii maro ha abbaansan qayrkii abshiroo nasteexada ikhwayaal ha diidina ashahaadda dib u qirac istikfaar la kaalaya ijtihaada daacadi ma ayaan darraatee rabbiguna ishraax iyo aflax iyo sacaadiyo ajar haydin siiyee aadamaha tuugina halkaa markay maraysay waxaa soo galay jaamac xasan maxamed oo maansadiisa la yidhaahdo eebo waxaanuu ku bilaabay adduunka iyo aakhiro awalkoodii koobaad ilaah baa abuuro nebi aadam dhoobiyo ka alkumay turaabto malaa'igta nuur baa rabbigay ka uumo insigiyo jinkoo idil waxa lagu addoonsaday inay amarka qaataan ilaahay addeecaan isaga u khushuucaan idilkeed cibaadada ikhlaas ula yimaadaan alle ugu dhowaadaan arrin mala awaaliyo ikhtilaafi maahee waa shay asala oo rabbigay addoommaha ugadooda saaro aayaadka diintiyo axaadiistu sheegto mushrik baa inkirayo awliyo u yeedho ilaahay saluugee axadkii islaamee ashahaadanayee iimaan ka buuxa
asmacyo adeeciyo aqbaliyo ijaabo amarkii ku qaatee tawxiidka abidkii aasaaska diimaha waa udubdhaxaadko ambiyada dhammaantood ilaa aadan iyo nuux udgoonow rasuulkii isagay ku baaqeen ummadaha u sheegeen waa astaanta gaalkiyo muslimka u dhaxayso lagu kala aqoonsado waa eelka ubadkiyo aabbe iyo hooyiyo inan iyo adoogii ehel iyo qaraaboba lagu kala irdhoobo loo egmaday jihaadko aarmiga dhacaayiyo eebad iyo leebkaba la isugu afaysto adhaxda iyo laabtiyo oofta la isu gooyo ihaaneeyey gaalo addoonsiga u sababo ku metelay ancaamto aakhirona naartiyo ololkii jaxiimaad abidkood ku waarsho muslinkana ikraamo ummad wada akhyaariyo ehelkii fardowsiyo umarada ka yeelo kala geeye aadmiga iyaday sidaa tahay ibtiliyo la yaab iyo amankaag waxaa dhigay dadka ruuxa aaminay awliyaa adeegto amarkeedu fuliso adduunyada awood ku leh odhaahdaa intaa leeg axadkii islaamee ashahaata daayo umaradii kufaartiyo odayadii quraysheed abujahalna muu odhan udgoonow rasuulkii ayaantuu u baaqee ugu yeedhay diintee uga digay asnaamtee ashahaata uu yidhi waxay ugu jawaabeen kuwan aan acbudaynaa erguun baan ka dhiganaye abuurkiyo arsaaqdiyo adduunyada wax kuma laha allaan idinku dhaarshee labadaa odhaahood idinkuba qiyaaso u bandhiga qur-aanko ayamaa ibtilo iyo shirkigaa u sii dhow afartaa asteeye erey kale wuxuu yahay alifleyda socotiyo ibafuraha maansada awgeedi dheeraad xaqa wuu asiibo maansadaa ilwaad kale adiluu u haystaa anna waan ayiidayaa ninka eedda saaree alwahaabi yidhiye indhali'i ku sheegow adigaa ilduufo xaqan ka indhabeelo ibliis kuu dhawaaqo shirka ababinaayo ina aadan xaadbaad indhali'i ku raacdee aakhiro xisaabtiyo iil baad dambeeye ilaahay u soo noqo halkaa markay maraysay waxaa soo galay maxamuud siciid cali garaad oo maansadiisa la yidhaahdo onkod waxaanuu ku bilaabay allahayow adaa weyn am ku sii awaaraha ku adkee albaabada aayadaha ku taageer ha la waayo aane ku afgoo shareecada allahayow adaa weyn abidkeeda maansadu odhaah kuma sinnaato isku ayni maahee abtirsiinta guud iyo isamkay wadaagtaa anna waxaan ku darayaa rabbi baa itaallo deberaayo uunko awooddiisu weynto wuxuu oofiyaa fula isagaa addoommaha ku abuuray dunido anfacooda siiyo ku arsaaqa koonko amray inay addeecaan iyaday sidaa tahay aafaadka meeriyo ibtilaan dhammaanine niman axanka daaqo abqabaacsanaayo afarqaaday socodko qubuuraha ag joogaa arligeenna soo galay ibliiskii la naaree janno laga ilaashaa shirkiga u asteeyo abshir waxay yidhaahdeen wuxuu soo alluubo amni waxay ku seexdaan adduunyada korkeedii asqo noocyo badanaa bal amuuraha daya allahayow adaa weyn arwaaxdii la aasee qabri lagu ilaawaa ubad iyo adduun iyo irsiq laga dalbaayo awgayow la leeyahay marna eedo liitaay ku ammaanayaanoo aadu iyo masboodiyo aar bay ku sheegaan waa duul inkaaro ka irdhoobay khayrkoo cunay aayahoodo amarkii rasuulkiyo inkiraaya diintee waa erey su'aalee xaq miyay u iisheen allahayow adaa weyn maalkii agoontee rabbi uu ilaashaa abley lagu biraystaa lagu eertay geedow ahmin iyo karoon iyo orgi feedho weyn iyo hadba kii abeeray isha saarayaanoo arxan way ka dheeryiin hadba reer islaamoo ashahaadanayaa isii lala dul joogaa lagu seegay aakhir allahayow adaa weyn ambad yahow haddaad tidhi dadka kii la oofsaday marka iilka uu dego
xaajada adkaatuu ergo iiga fidiyaa alle wuu la doodaa waxbaa laga ajiibaa axaadiistii rasuulkiyo aayaduhu ma sheegine waxaad tahay indhoole allaha u soo noqo allahayow adaa weyn aqoon ruuxa maalaa jahli lama abraaro hadba ood ma jiidho culimmada ilwaad kale sidii duul amxaare ah aflagaado ceeb iyo xumo kuma abqaalee ibtidaa haddaad tahay xaqa lama afduubee alif iyo ba' soo dhigo asallada saxeexa ah ha laguu iftiinshee ibnubaas ku soo biir allahayow adaa weyn maansadan asluubtiyo anshaxeeda wadatee onkadkeedu kuu baxay ambiyada warkoodiyo udug bay sidaayo aamiin bay ku leedahay allahayow adaa weyn maansadan asluubtiyo anshaxeeda wadatee onkadkeedu kuu baxay ambiyada warkoodiyo udug bay sidaayo aamin bay ku leedahay amintiyo dharaartay oohow kuugu baaqdaa haddaad abuurka saydhood aqbalkeeda diiddana ilamaa qiyaamaha usha weeye kugu taal intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa silsilad maaseedii alifley qaybtii koowaad halkaa inoo joogto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu